waa hoyga ugu weyn adduunka oo ay degan yihiin madax dawladeed. qasrigan ayaa dhowr jeer ka weyn qasriga Versailles iyo qasriga Buckingham. qasrigan waxa uu ku yaalaa dhanka webiga Brunei oo dhowr kiiloomitir koonfur ka xigta caasimadda Brunei, waxaana la dhameeyay dhismihiisa markii Brunei ay xornimada ka qaadatay Ingiriiska bishii Janaayo 1984. waa dhismo cad oo aad u weyn oo leh qubado dahab ah iyo daaro dhaadheer. qasrigan ayaa cabirkiisu gaaraya 200,000 oo mitir oo laba jibaaran. magaciisu waa Istana Nurul Iman. in ka badan $1 bilyan oo dollar ayaa lagu qarash galiyay dhismihiisa. qasriga ayaa qaadi kara ilaa 1500 oo qof, halka hoolalka xafladuhu ay marti gelin karaan in ka badan 5,000 oo marti ah. sidoo kale waa halka ay ku yaalaan xafiisyada sare ee dawladda. qasriga ayaa martigelinaya hay-adaha dawladeed ee ugu muhiimsan. si kastaba ha ahaatee, waxaa lagu daray buugga diiwaangelinta ee Guinness World Record.